qodob maalin laga hadlo laakiin maalin kaliya in laga hadlo lagu soo koobi kari maayo runtii marka dhowr qodob baan taabanaya anigu marka ugu horeeya xildhibaano badan oo iga horeeyay baa ka hadlay waana la qaba runtii waa ka wax soo saarka marka laga hadlayo beeraha xoolaha iyo kalluunka waa waxa ugu horeeya ee dhaqaalaha dalka ka caawiya haddii aanad wax dibadda u dhoofin dee wax kayd iyo dhaqaale yeelanaysa haddii aanad iskaga filaanin waxaad cunaysana dee wax wadan jiraba ma tihin maanta waxaynu ognahay markaa basal ha ahaato ama tamaandho ha ahaato inaan midna iskaga filayn wax walba dibadda inooga yimaado marka waxa ugu horeysa ummad la gudboon si ay u noolaato dhaqaale u yeelato waa inay wax soo saar yeelato kow waxa ay iyadu cunaysaa iskaga filaato qodobka labaadna ay tahay in dibadda wax loo dhoofiyo marka labaad marka horta dhaboodfintu waxay noo joogtee waa in maskaxdeena iyo muruqeena la isugu geeyaa sida aynu wax ula soo bixi lahayn dalkeenu dhul nagu filan uu leeyahay oo la beero biyana uu leeyahay waxaan xasuustaa xog ururin la sameeyey 2008 bay ahayd baan filayaa waxay sheegaysay 2 sanadood gudahood inaynu cuntada iskaga filaan karno 5 sanadood gudahoodna dibadda u dhoofin karno marka la eego dhulka banka wajaale xaaxi iyo beer xogtaas waxay ka hadlaysay oo kaliya waxay ahayd banka wajaale xaaxi iyo beer intaas oo kaliya hadii la beeray ahayd in 2 sanadood gudahood la iskaga filaan karo Soomaaliland cuntada 5 sano hadii la gaadhana la dhoofin karo iyo hoostooda ku jira loo ku filan yahay laakiin taas waxay u badan tahay in aqoon iyo dhaqaale inta la geliyo marka inaga gol ahaan waxay naga aadan ugu horeeyo waa xagga shuruucda waxa ugu horeeya inaga gol ahaan waajibka inaga saaran wax soo saarka waxa weeyaan xagga shuruucda marka shuruucdeenu waa inaynu ku fakirnaa inay noqoto ama ku dadaalnaa inagu kow inay dhiiri gelinayso beeralayda way ku dhiiri gelinayso wax soo saaraan in muhiimadda la siiyo in hay'adaha dawladda iyo hay'adaha wax bixiya ay muhiimadda siiyaan beeraha oo dawladdu ku jahaysa beeraha taas waa qodobka koowaad qodobka labaadna waxa weeyaan waa protection inay halaan ama ilaalin مثلا maanta waxaynu hal beero oo qarab bixiha loo jeedsado ama wax kale ha loo jeedsado dibadana haduu ka yimaado cashuurta ku fududaato de beeralayda marka weyn jabaysaa suuqiba ka jabayo marka waxaynu soo saarayno waa inaynu ilaashanaa marka hore waa inaynu ugu filaadaa markaynu ogaanay inaynu ugu filan yahay waa inaynu ilaalinaa marka wixii dibadda ka yimaanayay ama cashuurta ku kordhinaa ama taarifs waxyaabo kale oo runtii u saamaxaya beeralaydeenu inaanay niyad jabin ama aanay ku jabin in la sameeyo oo kale markaas oo kale laftarkeedana waa in laga ilaaliyaa deeqaha cuntada ay noo imanaysa waa in laynoogu keenin waxaynu inagu soo saarno ee waxaynaan haynin lagu keena sababtoo haddii maanta aynu wax beerno waa inagu filaato oo la yiraahdo macaawina la dinsiinaya oo macaawinadii laynoogu keeno hadii sida ka dhacda WFP hay'adaha international ama dawladaha deeqda bixiya ama UN-ta iyo hadii jeer waxay dhacdaas mararka qaarkood waxyaabaha wadankaasi soo saara haddana in deeq lagu keeno bilaash lagu keeno dabeetana wixii uu jabo ninka beeralayda aanu sanadka dambe soo saarin marka waa inaynu ilaalinaa inagu shuruucna aan ku ilaalinaa dawladana aanu hadii jeer ku baraarujinaa inay priority ama muhiimadda siiso wax soo saarka beeraha xooluhuna waa mid xooluhu waa lafdhabarteena markaynu ka hadlayno dhaqaalaha waxaynu dhahnaa xoolaha inoo lafdhabar haddana waxaad moodaa inaanaynu ahmiyadda moodaaba maaha xaqiiqaduna waxay tahay inaanaynu ahmiyadda sidaa u siinin hadday noqon markaa in dhulkii loo ilaaliyo calafkii loo ilaaliyo caafimaadkoodii la ilaaliyo habkii dhoofintooda iyo caafimaadkeedii certificationkeedii laga shaqeeyo imika waxaad aragtaa geel inuu magaalada dhex joogo anigoo la yaaban maalin nin geel la socdo magaaladan weydiiyey waxaan ku magaalada geela maxaa uga saari weydeen isagoo xanaaqsan buu igu jawaabay xageenu geynaa buu yidhi meel walba nin baa ootay waa seeree maalinta waxaan ogaaday inay nafi keentay dadkan geela magaalada ku dhaqanaya oo meelihii ay daaqi lahaayeen oo dhan laga xirtay oo seer laga dhigay marka waxa weeyaan waa in xukuumadda iyo golayaasha shuruucda inay ku adkeeyaan inaan seer la samaysanin qofku intuu beeranayo mooyaane inta kale ay xoolo daaqsanayeen oo noqdaan oo loo helo daaqsinta ta kalena ama dhirta la goynaya ha noqoto ama soil erosion loo ilaaliyo si maaragtay xoolaheennii haddii ay lafdhabarteennii yihiin muhiimadda ay noo leeyihiin loo siiyo waa in markaa shuruucdeedii iyo nidaamkeedii loo sameeyaa loo ilaaliyaa oo seerayaashana kow ka ah laga baabiyaa xooluhu helaan meel ay daaqaan kalluunkuna waa la mid isaguna waa muhiimadda ugu weyn xooluhu way naga dhamaanayaan kalluunka iyo xoolaha marka hilibka iyo kalluunka marka adeegta kalluunkaaba ka jaban
sababta de marka waxa weeye iyada laftarkeeda waa inaynu sida xoolaha aan u soo sheegay iyo beeraha muhiimadda loo siinayo kalluunkana loo siiya marka investment haddii ay noqoto ciddii maalgashi samaysanaysa lagu jeeyeeya kalluumaysiga bad dheer baynu leenahay 850 kilomitir kalluunka de kalluun indhaga nagu filana kama soo saaro marka iyada laftarkeeda waa inaynu ku dhiiranaa cid kastoo ama maal gashanaysa ama xukuumadda ha noqotee in la sameeyo kalluumaysiga muhiimadiisii la siiyo runtii waxyaabo ugu muhiimsan waxa weeye wasaarad gaaraba loo sameeyo oo kalluunka runtii ku takhasusta haday noqoto maaragtay beeridiisii haday noqoto dhoofintiisii haday noqoto qalabkii qaboojintiisii infrastructure-kiisii waxa soo dhan way naga dhameeyeen marka kalluunku muhiimadda uu leeyahay waa in isagana loo yeeshaa la siiya inta waxaan kaga baxayaa wax soo saarka waxaan ku xigsiinayaa waxa weeyaan waa macdanta runtii macdantu wadankeenu macdan aad buu leeyahay ilaahay uu ku manaystay laakiin umaynaan jeedin aqoonteedina maynaan lahayn lacagteedana ma geliyo laakiin marka waxa moodaa dadkii inay soo jeedsadeen macdantii oo meel walba la galay waxaanad moodaa nidaamkii iyo shuruucdii iyo siyaasadii iyo guidelines iyo in ay ka horeeyeen dadkii galaya macdantii sameeyay marka gol ahaan inaga waxayna kaga waajiba macdantan iyo dadka lagu fasaxay waa shuruucdii iyo nidaamkii lagu ilaalin lahaa in loo sameeyo oo dadkan dhulkii isku qamadeen haddii investment inoo yimaado dadka meel lagu tago dad baa ku qabsanaya waxa weeye dadku marka nidaamkii iyo shuruucdii kala hagaya waa inay nagu sameeynaa dadka deegaanka xaq bay u leeyihiin intaasay ku noolaayeen way degan yihiin waxaan ka soo baxaya waa inay wax ku yeeshaan dalkuna guud ahaan waa inay wax ku yeesho marka xeer iyo nidaam kala hagaya oo dadkii localka ahaa ee deganaana waxay xaq u lahaayeen siinaya dawladda iyo central xukuumadii iyo dawladii hoosena waxay u xaq lahaayeen siinaya taas inagu wax badan inay kaga dhiman yihiin baan u malaynayaa xagga shuruucda marka taa laftarkeeda waa inaynu iyadana ka dadaalayno wax badan ka qabanaa baan aaminsanahay qodobka kale ee aan ku darayaa waxa weeyaan waa warshaduhu waa laba wax wadankeena ka soo baxo ama sida dhulka hoostiisa ay tahay iyo wax kale oo dibadaha laga keeno anigu waxaan xooga saarayaa tan dhulka macdanaha hoostiisa wixii macdanta ah ee dhulka laga sameeyo ee warshad laga sameeyo de umada leh dadka iska leh waa inay xukuumaddu wax ku yeelataa cidii maal gashanaysaana wax ku yeelataa imaka warshadii ugu horeysay sibirka la sameeynaya dawladdu waxay ku leedahay ma garanayno dawladdu waxay uga mas'uul tahay waxa weeye waa ka waalan ka xanuunsanaya ka gaajoonaya waxa soo dhanba wax ku leh marka waxa weeye in ummaddu wax ku yeelataa waayo waa macdantii waa dhulka waa la wada leeyahay cidda kalena way maal gashanaysaa marka adduunyada sida ka dhacdo waa la wada yeeshaa xukuumadda iyo ciddii maal gashanaysay marka waa in taana shuruucdeedu ay taalaa in la wada leeyahay cidda maal gashanaysa iyo dadweynihii iyo ummad oo dawladii oo ka wakiila dadweynihii ay iyaduna qaybteedii qaadataa taana xagga shuruucda iyo nidaamkan anuu xooga saaraya inay kala hagto oo cid waliba waxa ay yeelanayso ay shuruuc iyo nidaam ku qaadato waxa ay soo raacay waxa weeyaan waa isku dheelitirka shilinka iyo dollarka runtii aad baan u amaanayaa qoladan banka dhexe imka meel fiican bay soo gaarsiiyeen qiimihii shilinka Soomaaliland qiimo u yeelan halka uu maray weyn ognahay halkii uu ka soo dhacay weyn ognahay amaan bay ku leeyihiin runtii waajibkoodii way guteen banka dhexe ahaan marka adeegto laakiin mid baa wali taagan ganacsatadu ma aha waliba ganacsatada wax soo dejisa dollarkii bay wax ku iibiyaan iyagoo waxba kuma yaqaan kareen waa halkoodii laakiin cidda ka soo iibsanaysa dukaamada haday tahay maqaaxiyaha haday tahay wali waxay taagan yihiin 10kii kun markuu ahaa maalintu dollarku wanaagsanaana dollar bay ku iibinayeen maalintu shilinku qiimeeyay shilin bay ku iibinayaan مثلا halkii dollarka ahaa qiimihii maalintaas 10 ka bay ku iibinayaan marka waa in taalaftarkeeda xukuumaddu ay wax ka qabataayo maadaama dollarkii hoos u dhacay la wuxuu bin dibaddeenu ka keenaa dollar baynu ku isdhanaayay waa inuu ku xadiisnaadaa qiimaha dollarka marka dollarka hoos u dhacana waa inuu wixii jabaanay hoos u dhacaan marka uu kor kacana waa inay la kacaan laakiin haday marba mid raacaan oo ka hadaan dadweynuhu bay dhibtaas ku noqonaysaa marka taas waxaan xukuumadda ku baraarujinayaa in dib loogu noqdo cidda ganacsatada ah shilinku markuu jabanayo la kor u kacana ay la socdaan isku dheelitirka ee aanay ku hadhin hadba qiimaha badan taa intaasaan kaga baxaya waxa soo hadha waa cashuuraha weeye cashuuruhu waa laba waa cashuuraha bariga iyo cashuuraha kastamada inaga teenu boqolkiiba 80 waxay ku xiran tahay waa customiska laakiin xagga in la darfaniyo ama cashuuraha bariga aad bay noogu hooseeyaan marka waxaynu u baahannahay cashuurahaas in xoog la saaro cashuuraha bariga waxa kale oo ognahay marka in dekada la balaadhinayo oo ay hadhow alaabo badan oo transit soo marayaan markaana ay hoos u dhacayso cashuuraheennii customs
maadaama ay hoos u dhacayaan waa imika in laga tabaabushaysta dhinaca hoos u dhaca ka imanaya ma kafaynayso serviceka laga qaadaya cashuurtiis ma dhigmayaan halkaa hoos u dhac baa ka imanaya marka waa in la helaa dhinacii looga wareegi lahaa waxaynu ognahay xagga cashuuraha berigu inay aad u hooseeyaan marka xaggaa nidaam adag in laga soo saaro waxaan xasuustaa beri article aan akhriyay ninbaa wuxuu yidhi adduunyada saddex wax baa loogu cabsi badan yahay dhimashada cadaabta iyo in la dirfiniyo cashuuraha beriga marka yacni cabsida adduunyadu ku qabtaa waxa weeyaan shuruuc adag bay ka leeyihiin qofkii musuq maasuqa ciqaabteedu helaya marka inagu labaynu u baahannahay in shuruuc adag loo sameeyo oo qofka cashuurta ku waajibtay وقفك عشورته كوا جبتين وبحيو تلباد إنه بهاي إنه حويان حكومته يدنا إلى إلاليسو وaccountability transparent نقطه لعكت عشورها إيه سوق هذا إنه عداته ماشي يكون حبونات دكوا بحضر لبضع مركز لأنه كل سوني شعب كاسون نقوليسا قفك عشورتي وبحنا يا مركو وجي هاي حلقي هاي مريسو مركز لبضع دلال باللو بهاي إن عشورها شروع دود الله كيو قفك مواد كنو عشورته بحيو حكومتنا أي على لسا عشور تاس وماشي لوجو تلاقي لي أي مرتو لبضع هدي اللي يسله له كل سوني دود كاسون نقوليسا تاسنا أنت وارهم مالا بدنا عشورته أنا يسكولي بتبني باجرته تانا قلياش الشرع دجنتي واجب كسارنتها تصالحنا دلو سوقاته إسلام تتمنى السوق كي بيسوي حلقة أو مالنتي إن لقى قاعدة لما كنا شين هدي اللي حسابيو العقد عدو بدن بيكون نقوليسا الشركة دي إسكارسين تعال العقد لقى قاعدة أديات بيرتاحي مركب وحوي تاي نجا أمد مسؤول جاه شروع دي النظام كدينا نجا مسؤول كاه وأنا عشورتين يدقالهين ونقضى مدو أذيجيا دتك الدنيرتا يعني نقول مدو أذيجيا دتك تاجرينتا مركب وحنا عمسنا هاي إن حلقة على إسكودير بترو عشورتا عن كوباقان إسلام تتمرد يبسا نينك تاجر كانوا وأنا كوباقان وأنا سكسر لوجا قاعدة تاسنوا أنا النظام كذي شروع دي ريالتا والسلام عليكم.